ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug waxa ay dhawaan qabteen carruur aan qaangaarin oo ay askareeyeen Al-Shabaab. Waa ay fududahay in carruurta la marin habaabiyo oo laga dhigo dilayaal manaxayaal ah. Boqolaal carruur Soomaaliyeed ah ayay Al-Shabaab askareeyeen ayna u adeegsadeen falalka argagixisada. Carruurtu waa dadka ugu nugul bulshada dhexdeeda. Askareynta carruurta aan qaangaarin ee dhinacyada hubaysan waxa ay ka soo horjeedaa sharciga Islaamka iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada. Sababo la xiriira askareynta carruurta aan qaangaarin dartood waa in cadaaladda la hor keenaa horjoogayaasha Al-Shabaab marka la qabto. دادا وامس يا توني شنو تسميها توني شنو تسميها هاي مركز جامعة maxaa ku kalfina qor qaadato dagaalanta marka waxbarasho rabtaadiga markaas la yiri dagaalan miyaa hadalkaagu haye marka maxaad oran weyd waxbarashadu qor in la qaato maaha in bug la qaato weey hooyada iyo aabaha ma ogayn markii soo kaxaynay marka soo ku galata adiga waxbarasho lagu kaxay adiga hooyada iyo aabaha ogeyn waxbarasho rabti ya Soomaaliya oo taageero ka helaysa AMISOM waxa ay u dhaqaaqday dib u unkida nabadda, deganaanshaha sharciga iyo kala dambeynta iyo horumar uu dalku ku talaabsado. AMISOM waxa ay amaanaysaa jawaabta degdega ah ee ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka bixisay badbaadinta hay'adaha amniga ee Puntland, iskaashiga hay'adaha dawliga ah ee federaal iyo goboleedba iyo heerarka bulsho. Waa habka horay loogu dhaqaaqi karo. Waa in aan iskaashanaa ilaa dhammaan horjoogayaasha kooxaha mayalka adag ka tanaazulayaan rabshadaha la xirayo ama la dilayo. Al-Shabaab waxa ay isku dayaysaa in ay deganaansho la'aan ka abuuraan dhul nabdoon xilli lagu wado inay qabsoomaan doorashooyinka madaxtinimada ee 2016. Bulshada waa in ay u istaagaan la dagaalanka Al-Shabaab. Maleeshiyaadka Al-Shabaab waxa ay ka qaxayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM howlgalka ay ku baacsanayaan Al-Shabaab ee marinka Juba. dowladda Soomaaliya iyo AMISOM waxa ay ka rajeynayaan waalidiinta in ay mas'uul ka noqdaan kana warqabaan dhaqdhaqaaqyada carruurtooda. Ka ilaali in carruurtaada ay ku dhacaan gacanta argagixisada manaxayaasha ah. Si wada jir ah aan u ilaalino carruurteena Soomaaliyeed ee aan qaangaarin oo ah hogaamiyaasheena mustaqbalka.